ونمي أصحابي بريحان دنبه حنون حنبا صوغلي أدونك حنون صوغلي وحكمي ده ورقف بعد إن ير أرن سوق ونسان أرن تامر هذا قف سوق وتنود كلا أركتد ونانسان كدبنا وحدا عيسد لبد قف مركي كلا أركتد ونادان سيد عادي قو حي هيد وأنا وساس وكا فكر دون هاي توحاول يعني سك فكر منين أنا كلا كحي نرشي يا أصحاب نمدي يا مقرن الساي ولالت نمدي هل كيف يكسي سوين شرتي بريحان دنبه هذه العركتين بالغيابة وإن بدنا هذه كم بدأت كتشاور السنتين قف بعد رأيي كوكل الدونانسان أما عاد ما عرفت إيش شيء اسمه إنه حكى أركهين كدبنا بريب بعد مقالة دسكوهر معنسان كدبنا وحدا عيس قف إنه أفكو تاجو شو ونكي محاخد عينيو كدبنا وحدا عيس قف كيبا إن مقرنا ساي شيء أديك وهم واقود درو أو حافظ هذه مركات كتاب جد كمركات مريسات سويدي سودا ده ورنيو دي أتقرن وإذا حشمت دي وناجح وهالقيمت هي ده سدا يقوّعه وناج إيجا مسوي سدا يقوّعه وهالقيمت هي ده سدا يقوّعه والله أنا هالكلام مريب بالله مركات إن عذائي حرتي نصيبك إي وعناذي مركات إن عذائي حرتي نصيبك إي وعناذي برأضي دراوشت نعلا شيدان فيها gabdhaha daacaddeedu caaw waxay ku saabsan tahay gabdhaha Mareykanka jooga gabar Mareykanka joogto saaxiibad naagu saaxiiban noqdaan 2 maalin 3 maalin ama 5 maalin ama 2 sano ama wixii qofka daduntiisa wacan tahay waxa wanaagsan marka qofka saaxiibka tiina si toos ah lillahi ina saaxiib lahaad marka culka tiina si toos ah caadi ina banaanka uga marto ma ahan ina qofkii ka dabalaalaabato oo dhabarka ka xigxigata ma aha gabdhahan waxaan ku arkay col marka noqotaan suuqay ku galaysaa toowa ee kugu aragta ayada ku salaamaysa xitaa way u tagaysaa warbi u soo sheegaysaa saasay ku daba soconaysa kaaga daba meeraysanaysa aad baan idin salaam baan idin salaamaya asxaabtayda meel walba joogtaan gaar ahaan reer Minnesota goobtii reer Minnesota waxaan idin la socodsiinayaa in ay nagu soo fooladahay hadduu Allah wado yiraahdo magaaladana nagu la sugnaan doonto maalinta 17 bisha September oo ah sabtida soo socota walaashay fanaanad qaran fanaanad qaali ah farax kaftan waxaan leeyahay wardada laga kaco waa ladies night dumarka magaalada marwooyinka magaalada ayay u tumaysaa habeenkaas annaga oo ah fanaaniinta reer Minnesota oo dhan oo garab taaganahay hala soo dhaweey walaashay si qiimo leh oo wanaagsan iyadoo sida u soo dhaweyso dadka ugu yimaada magaalada London aniga aan kamid ahay hala soo dhaweey maxaad kala socotaa sheekada gabadha yar ee Ethiopia u dhalatay ee maalmahan aad u qabsatay bartan TikTok muddo 4 maalin laga jooga ayaa islaan asal ahaanteeda ka soo jeeda wadanka Falastiin balse Urdun degan lagu magacaabo Amaar waxay soo boostagareysay muuqaal gabar yar oo Ethiopian oo guriga uga shaqeyso oo ay leedahay aniga maanta laga bilaabo mushaharka bisha kuma siin doono maxaa yeelay hooyo gabadheeda mushahar ma siiso balse waxa isqaban waayay hadalka ay maamada tiri iyo gabadha yar sida ay u taalay ama ay u muuqatay oo duruuf aad u adag ay ka muuqatay waji ahaan iyo dhar ahaanba iyadoo waliba gabadha ay dhaysay okay mama arintaasi ayaa dad badan aad u damqisay shacabka wadanka Ethiopia oo adduunyada meelo badan ka jooga ayaa bilaabay inay muuqaal soo duubaan meel walba ay joogaan iyagoo muuqaalkaasi ka dhiidiyay tilmaamayna in gabadhan yarta ah xoog lagu haysto xaaladeeduna ay adag tahay loona baahan yahay safaarada dalka Ethiopia ay ku leedahay Urdun in arrinkaas ay soo fargeliso islaanta ayaa muuqaalo kale soo duubayso gabadha ay aad u duruufaysan tahay laakiin shacabka ayaan marna ka jiifan oo maalin walba muuqaal soo duubay gabadhana u jeedaan haba ugu badnaatay oo subax waliba muuqaal soo dhigaysa arrinkaas ay uga hadlayso ugu dambeyntii safaarada Ethiopia ee dalka Urdun ayaa arrinkii soo fargelisay iyadoo gabadhii safaarada la keenay gabadhana waxay sheegtay in ayada muuqaalada xoog looga duubi jiray oo aysan raali ka ahayn isla markaana shaqo aan tankeeda ahaynba ay qaban jirto oo cidaas ay dib ku qabtay gabadhii hadda safaarada Ethiopia Urdun ay joogtaa safaarada ayaana shacabka Ethiopiaanka ee buuqa badan ka dhaliyay TikTok ugu lab qaboojiyay in gabadhu ay meel amaana joogto isla markaana Ethiopia dib loogu celin فضل الناصر سبسكرايب إلهي خيرها قصية وحدة دقات خفر حدا إلهي قصية كسو برحة قصورتي في مقال خاصي شهر قال نور الله يقرأ سينو هلا دعوة ديار عاد فربضان أو نرى دعوة ورك دق دقيقة هن هلك كسو باهي نسيد هلك خوارقته لما أنا إسحاب باركة
lamaanihii loo qaadan waayey lamaanaha qabsaday baraha bulshada itus oo itaabsii arrintan oo noqotay dhiiqa lugolagal walaalkan qays carab oo waxa weeyaan lasoo ogaaday inay gabadhi dubay ugu nooshahay kolley reer hore ayuu lahaa isagaaba afkiisa ka qaray oo yidhi gabadh ayaa i haysa wiil 7 jira aniguna iska daa 2 ee 3 baan mid kalaa soo wadaa buu yidhi horta wixii dhacayba way dhaceen sideebay wax u dhaceen yaa soo fargeliyay arrintan maxaa looga hadli waayey maxaa waxa weye reeraha loo heshiisiin waayey haddaba ma ogtahay walaalkeen waxa weeyaan inuu haddana muuqaal kale soo duubay oo uu ku sheegay waxa weeyaan in arrintan horta wixii dhaca way dhaceen hadda balse lamaane isxambaarka oo kala tegay dhegtuba way taagnayd buu yidhi sidii dhiinba loo cunay dhegtu way taagnayde dhirtun baan ka daydayay dhogor waraabeed wadigaa arka walaalkeen iyo seerabshiishii maanta oo waxa weeyaan ay arrintani noqotay arrin xaqiiqo ah sidaan u sheegay hore 10 bilood ka hor dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa waxa weeye moodi jiray inay shilin tahay muuqaaladay soo wada duubi jireen ayaa barahooda bulshada ay ka wada saareen midkood baaba waxa weeye barihiisa bulshada hawada lagu cunay oo ah qays cid cuntayna lama garanayo haddaba walaalkeen waxa weeyaan horta reerkan uu leeyahay walaasheen seerabshiishina waxa tiri noloshu way ii socotaa iyadoo baaqna soo dirtay oo tiri dumarka la furow ha isdhiganina ee wadadu way furan tahay sii raaca wadnayaal shacayl baydin hor yaale kasi urursada sidaad halkaa ku aragtay waxa weeyaan ishaabo oo waxa weeye soo bandhigtay muuqaal la yaab leh inantii ishaabe ahayd horta waxba kuu sheega ishaabo iyo waxa weeye ilka case hadalkaa iga qor isma qabaan ismanay guursan balse shaki weyn baa meesha yaala waxa weeyaan walaasheen ishaabo oo muuqaalkaas soo duubtay iyadoo sheegtay in kulley muuqaalkaasi waa dhagahada balse ciddu ku socda lama garanayo gabdha reer Maraykana ayaa waxa weeye sidaa loo garay oo lagu xarooday inantii ishaabe ahayd oo tiri dumarka reer Maraykan saaxiibtinimo ma galaan taasina waxay ka dhigan tahay Nicima Shookar iyo ishaabo inay saaxiib ahaayeen oo nolosha ku midoobi jireen oo waxa weeyaan aan ognahay inay ganacsigeeda halkaa ugu xayeysiin jirtay Nicima Shookar haddaba waxa weeyaan inantii ishaabe ahayd muuqaalkaas gabdha reer Maraykana ayaa waxa weeyaan si toos ah loo qoray iyadoo lagu yiri saaxiibtinimo ma galaan oo markay dhowr maalmood kula joogaan ee nolosha ay wada qaybsataan ayaa waxa weeyaan la isu kala bedelaya ishaabo oo sheegtay inay dumarka reer Maraykan sida jirjiroolaha washiga badan yihiin oo maalinba wishi ay la soo baxaan anigu maan odhan ishaabo afkeeda laga hayaa oo soo bandhigtay inay bilaabi doonto muuqaalo loogu magac daray ilaacadda dhegeyso ama ha dhegeysan ku dhaco ku dalaq dheh waxa weeyaan handalla la isu xiray miyaa waxa weeyaan ma boholo la isu qodayba oo miyeenu garanaynaa dhiiqa lugolagal miyaa oo miyeenu garanaynaa sida halkaa ku aragta waxa weeyaan dalmaryare oo ah fanaanka caanka ah dalmaryare ayaa soo ka codsaday ummadda Soomaaliyeed ee reer Maraykan inay soo dhaweeyaan fanaanada caanka ah ee Farax Kaftan oo 17 bisha dumarka reer Maraykan oo dhan la ballantay oo u qaban doonta showgii loogu magac daray showga sanadlaha ah ee dumarka reer Maraykan ay dhigtaan sanadkan waxa hogaamin doonta fanaanada caanka ah ee Farax Kaftan haddaba walaalkeen sideen ognahay markuu showyada ku qabanayay meelo badan oo dunida ka mid ah dalka Ingiriiska ayuu tagay waxaana ku soo dhaweysay oo ubaxyada guddoonsiinaysay Farax Kaftan oo aynu arkayna muuqaalada inay waxa weeye ku jirtay iyadoo weliba casuumad ballaaran u samaysay isagoo ka codsaday in sidaasi ka wanaagsan loo sharfo markay timaado sidii safiya tusmo dahab gacantayda leeg reerkeeda ay u xidheen oo halkaa u sureen dahab intee leeg oo as oranaysa 100,000 oo lacagta abu bidaarka ah baa laga bixiyay ayaa halkaa loo suray inantii safiya tusmo shalay sidaasoo kale ayaa waxa weeye la rabaa in aydu reer Maraykan oo dadka u soo dhaweysaan ayuu leeyahay dalmaryare oo weliba
ay u qabanayso show hadda xataa lasii goosan karo oo qiimihiisa aan weli la shaacin. sida halkaa ku aragto waa weer degdega ilaahay godka ha u nuuray wariyad caanaha u geeriyootay maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa. wariyad Safiya Yuusuf oo ahayd wariyad ka soo hadli jirtay raadiyo halgan ayaa geeriyootay. wariyadan ama saxafiyadan ayaa waxa weeye ahayd geeridoodu mid kirisa ah oo ku soo booda ah. saaka ayay soo wacday qolada shaqaalaha iyadoo ay la ballansanaayeen weliba waxa weeye inay qabtaan warar degdega iyagoo baahin raba oo xalay arrintu socotay oo waxa weeyaan ay soo wacday saaka iyadoo sheegtay inay xanuun yar dareemayso. wadku meel ma jiro waa lagu soo boday wariyadan. wariyad waxa weeye Safiya Cali Yuusuf sidaas ayaa waxa weeye maanta ay ku socota. ilaahay godka ha u nuur ayaan leh. waxaan ku leeyahay wararka ajaab kale faraqayn doona bilaa dhamaad rasul. sida halkaa ku aragto warkeena maanta ugu la yaab kale ishaabo oo muuqaal bilowday dhegeyso ama hay dhegeysan dhigtaana ka maqaltana ka siida hadaa doonto. ishaabo oo furatay ilaacad loogu magac daray dhegeyso ama ha dhegeysan. balse sidayna arkayno inantaas waxa weeyaan ma oran karno ilka case iyo ishaabo way isguursadeen. kolley waxa weeyaan arrintan waxaan u arki karnaa hadda laan kula hadlayo ilka case Nicimo Shookar way guda shoogaan waa lamaana isqaba balse ishaabo maxay meesha ka dhex wada. ishaabo arrinteeda waa in si gaar ah il gaara lagu eegaa. ishaabo filinka musaaracadaha ay wado iyo ilaacadaha ay farafaraysay iyo kuway soo saartay ugu magac dartay dhegeyso ama ha dhegeysan. bal waynu eegi doonaa halkay ku dambeeyaan. waxaan kule ka mid ahaw xaqso